الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أي تهاي بش لحي طبعا بشي تضبات لابد كن لباتن يصدق هذا كلب كان وحنا أدوبة يا وحيابها أو صومالي ما أنت آدي مسكحة دوجوها يو oo waliba niman khaas ah la baxay jihad muxuu jihad ayaan bal insha Allah ta'ala wax ka dhaxayna iyo waxa isu barbar dhigaynaa nimankan jihadka ay wadaan oo buqaada maanta ay Soomaalida ay laynayaan ayaan insha Allah ta'ala wax ka dhihi doonaa waxaan kale wax ka dhihi doonaa anigoo markaas bandhig u sameeynayo ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan ulama kubra fi Soomaal sida ulamada waaweyn Soomaaliya in ay wax ka dhahan isbarbardhiga aan ku sameeynayo ciidanka Soomaaliya oo dawladnimada u dagaalamayo iyo nimanka waxay u dagaalgalayaan waxa way wax kasta in lagu abiraa fiican basaa'irta alkitaab wa sunnah marka ikhwaani soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay in maanta hadii deel qaafiyo badan aad igu aragtaana waxa weeyaan culimada islaamka khaas ahaan Soomaaliya waxaan ka codsanayaa halkaas waa sax halkaas waad ka soontantahay halka kuma toosnid inta inay yiraahdaan insha Allah ta'ala naqdin kala li keenin khaas ahaan dadkii in naqdinay waa aqaana ayagu inay naqdiyaan waa rabaaba hadii ay daruuri ay noqoto oo ayagu wax kasta waa naqdiyaan horta awla waxaan leeyahay ikhwaani walaalaha anaga muslimiinta ah oo jihadka ka dhawaaqay idinka muslimiin jihad ay ma tihiin mise min almuslimiin ba kama tihiin nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu ahaa muslimiinta iyo gaala waxa u dhaxay ma jirin marka idinku hadda maanta sidii nabi maxamed oo kale waxyiga ku soo degayay maad u tihiin muslimiin mise min almuslimiin ba tihiin waa su'aal jawaab u baahan haddii min almuslimiin aad kama tihiin muslimiinta qayb kamid ah tihiin muslimka kala Soomaaliyeed meesha dhiigiis looga banaystay alkitaab wa sunnah idinka aad ku banaysateen ayaan rabnaa ya كيف ساد وبنايسن كرتا aniga dhiigayga oo habeenkii aan soo jeedo ilaahi aan baryayo ummadaas ilaahi u baryayo ruuxayga absida igu jirto oo waxyaabaha iga horeeyo labada dhodhon iyo taakada arrad hoosteeda la iigilinaya wixii iga qabsanaya aan war ka haynin oo ilaahi la hor taaganahay dhiigayga saad ku banaysatay waxa kaaga daran nin sooman quraanka akhrinayo ilaahi absidiis u sooman cibaadaysanayo oo kitaabullaahi akhrinayo ayaad bastooro inta ula timaadid nush oo tiri jihadkaaga ma kaasba bal aan ku jilciye hadana aan ku jilciye dhageyso warkayga wareede ninka haduu dambi inuu ku jira awaati ma qabasho iyo xirmaan iyo maxkamad iyo fulin mawleeyahay mise maxkamadii adiga way fulintii adiga way wax kaas adiga way nash ina toogato way diinta dhigta taasna xagee ka timid diintaas tiina maxamed lagu soo gaaray ma sallallahu alayhi wasallam maaha waxaan rabaa marka ikhtiraa'aadka idinka aad ku dhaqmaysaan ilaahi subhanahu wa ta'ala hortiis waxaad ka heli doontaan wa badal lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun waxaad la kulmaysaan man maata qaamat qiyaamatuhu maalintii nin askari Soomaaliyeed xalaala bash wadnaha habad kaaga siiyo oo dhimato qiyaamahaaga way waxa ku daahiraya waxaadna filanayn aniga shabaab baan ahay reer jinaad baan ahay haye dadkan u shifaaca usradayda u shifaacaya meesha ma taala marka ma taala meeshaas ilaahayga daacadaha adoomaha u ahayn oo anaga hoggaankiisa iyo mataqaana tawxiidkiisa ku dhalanay
oo u sujuudayna allahaas hortiis la istaagaya daacadda ah allahaas hortiis ayaa la istaagaya ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaad kala kulmi mujaahid baan ahaa shabaab aan ahaa maadhihi adoo saas u dhiiqaysanayo adoo muslimiinta laynay adoo aadan garanayn damiirkaaga diin ahaan satrigaaga waxa ku weelaysan oodan waxba ka fahmin alkitaab wa sunna waxay yihiin dhaqan islaameed wuxuu yahay aadan fahmin ayaad leedahay mujaahid baana hal meel ayaan maanta ayaan rabaa inaan yara cifiyo waxay kamid tahay baabuur maanta baydhabo jooga baydhawada go'aan bay ku jirto waad go'aamiseen waxaad tirahdeen cunaqabatayn baan ku soo rigaynaa waxaa la soo fasaxay kuwii gedo weligeed ma aragteen gedo oo cunaqabatayn saaran maya galmudug cunaqabatayn saaran ma aragtay maya hirshabeelle cunaqabatayn saaran ma aragtay maya kuwa kale oon masayraynin masayr aan lahayn dadnimo nololeed iyo diineed midna aan lahayn oo dalkan u dhashay oo ku abtirsada digil iyo miriflah waxa la yiri degmada Dinsor cunaqabatayn saara qansax dheer cunaqabatayn saara boqol saara ya maxay ahayd wax alla wixii yihiin raxweyn intay ku abtirsada cunaqabatayn hala saara muslim baad ahayd mujaahid baad ahayd waa sidaad sheeganaysa kuwa kale maxaa furay kana cunaqabatayn saaray maxaa kala soocay maxaa kala xiray ii sheega aan ka soo dega goorma la jihaada aan u imaaday jihaadka goorma la jihaada markii imaara la helo hoggaan markii la helo hoggaan lagu kalsoon yahay iftaa oo Soomaaliyeed waa dhooban yahay maanta hal qof oo ummuto oo diinta islaamka ku abtirso yaqaana oo caalim ah soo sheegay sidii Sheekh Mustafa Ismaaciil Haji Ismaaciil oo kale Sheekh Maxamed Ismaan umul oo kale Sheekh umul oo kale aawi yaa idin la socdo yaa biyo waxa la yiri meeshii godan bay isugu timaadaa diinta meeshii tiilay caalimiintii muftiyiintii Soomaaliya aawi hal qof ma haysin jihaad lama dagaalami karo jihaad ma jiraba ma jiri karaba haddaan la haysanin mas'uul sare oo caalim oo mufti oo hogaaminaya ma suurtagal jihaad halkaas thawaabitiisi iyo mutaqayyiraadkiis waxaan u deenayaa ulama kubara fi Soomaaliya baa u deenayaa inay kala naashto oo wuxuu yahay soo cadayso meel saarto ayaa u deenayaa laakiin waxaan aad ugu dhiiranayaa waxyaabaha ayaga markasta ku hanjibayaan oo ileeyay waa ku dilaynaa war aniga si ilaahay ii sameeyay waa adiga aad warkaahinin ba ilaahay ii sameeyay abuuray haye waqtigii rabo ayuu ilaahay ii dilayaa ka soka ha sheegin sifaadka aad ku sifaysantahay waxa tahay yawmu ma ba waxa la yiri sidina Ali ayaa la yiri nimankan maxay yihiin munaafiqiin miya suu yiri maya haye gaala miya suu yiri maya muslimiin miya suu yiri maya maxay yihiin dhallu wa adallu nas buu yiri ها والله ما كل ما يوي أمدن أمنيه والله إلهي كريم كها واحد الأحد أها الفرد الصمد أها السجع أياك قلوبنا هذا السمايون السمايستي أسانا كأمر قادنا والسجودنا ليلا ونهارا واحد كسوتان جهاد معها فاسدين باتهن يا إلهي سبحانه وتعالى إذن سمايستي ما جرى نيسان سيدات مركو كجهاد تبيسا ميلاد الصعوت أو ميلاد كصعوت حدادا جرنينين ما حد كجهادي نفترض ما حد وهلاقي يا ما حيكته مركي إن شاء الله تعالى وحن كلا كدريا إخواني أنتاس وحن أدينا يا ننكي هرامبا حل الصونة وقتها كلا سكنا في أوقات كلا وقتي عبادة أو فرصة إسلام مسلمين تقول الله سيء ننكي عبادة سنة هي أنت نن أي ماذا بيلجري وحبه جباب كمرة بكاسو قال إيه مسلمين بيعتن من النبي محمد عليه أكفر ديه يا ينيمت عندنا مركب حويان سداس أوجد إسلام كوحو قبا
جهادك وواجب مر فرل عين مر فرل كفاية مسلمين تقدن جود كوضة انت إليهن جهادك السداسوية مر فرل عين بنقنا على شخص كستو التوحيد له نفيا وإثباتا وحفامي أيا وحكية فرل عين كيه مرنا واجبوية أوكي ما أنت واحد ودان تيه كجرتان تيه إسبار لي ما تهين بابورت إسبارات أوليغتين روح ذا بني آدم دادك جناع سديالك إسبارات أوليغتين إظهار الكتاب مسجد أصباه كتابك إلهي كره الله قاد مسانا إسبارات بابورت الله دقاي ما كتابك إلهي كره قادي يا الله نصرين مساكنتي حول لي ذا هيد كسوقات هذا النواحي الدين صور جيل بداق جري الله يأري بداق جري وحي سميين أنت يجي ماذا حولها نش 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 محي بيين ما محي بيين معناها قري موتة دل مياه نصر كتاب كده كره الله قاضي إظهار الكتاب مساسة نقطي هي اختراعات من غير مثل سابق إن تكس قنتهين من إسعقين علماء إلهي سيدا قاركوت أي أديين وحاتهين أنا ما تاريخ ذو إيو وليغا ديريا إيوغالك إيو مجاهدين تيهوري أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم تابعين تدنبي وهي سو جهاتمي dad taariikhda aad u yaqaan ayaa jira taas ayaga u deynaya laakiin buqaad hadda soo kacay oo ay leeyihiin jihaad baan wadnaa jihaad mu wadin dulmi ba wadaan ilaahay u noqdo culimada isu dhiiba noo imaada islaamka dhaqankiisa suubana u soo noqdo waxaan leeyahay marka ummadda Soomaaliyeed dhamaan hadaad aad guulaysataan bil midal ka dhig ما قولي سنيسان قولوا سيتان كده يا حكوميسان دتك هذا أوجود أبهات أداريهات أولادات عنقبتين ساري إد حكوميسان يا واحد